kulanti wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijkeennan xogaa dunida ee aan ku soo gudbinno warbixinada soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. barnaamijkeennan waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin cusub maraykanka oo ka codsaday inuu soo farageliyo dalka turkiga arrinta dalka ee etoobiya si loo xaliyo dhibaatada oo qayb weyn uu ka qaato kadib fashilaadda uu kala kulmay maraykanku inuu xaliyo dhibaatada dalka etoobiya. warbixin ayaad dhegaysan doontaan iyo jahwareerka ee dunidu ay ka qabto in ruushiya ay duulaan ku qaado ukrain iyo warbixinno kale ayaan ku soo gudbin doonaa xogaha diblomaasiyadda ee dunida. washington ayaa ku dhawaaqday in ergeyga gaarka ee geeska afrika ee maraykanka jeffrey feltman uu khamiista u safri doono imaaraadka carabta, turkiga iyo masar si uu ugala hadlo taageerada caalamiga ah ee dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu joojinayo dagaalka dalka etoobiya. wakiilka sare ee maraykanka ayaa ka codsanaya imaaraadka carabta iyo dalka turkiga oo la aaminsan yahay in saameyn ay ku leeyihiin siyaasadda dalka etoobiya si qayb ay uga noqdaan wadahadallada lagu xalinayo dagaalka dalka etoobiya iyo in xaaladda lagu wajaho xal nabadeed. halka addis ababa ay ku dhawaaqday in gacanta ay ku dhigtay deegaano hor leh oo ay ka talinayeen jabadda xoreynta tigraaga ee tblf. qaramada midoobe waxay xaqiijisay bililoqo ay geysteen gargaarka bini'aadannimada gobolka amxaarada kooxda tblf. ku dhawaaqista socdaalka ergeyga maraykanka ee geeska afrika jeffrey feltman waxay timi kadib markii uu fashilmay dadaalka hore ee diblomaasiyiinta maraykanka iyo afrika ee ay ku doonayeen in lagu joojiyo dagaalka u dhexeeya ciidamada dhexe ee dowladda iyo shabadda xoreynta tigraaga iyo xulfadooda. feltman ayaa bishii hore wuxuu booqday addis ababa, taas oo qayb ka ah dadaalada lagu joojinayo dagaalka dalka etoobiya, waxaana washington ay marar badan ay ku baaqday muwaadiniinteeda inay ka baxaan dalka etoobiya xaaladda ammaan darteed. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ned price ayaa u sheegay warbaahinta in soo afjarista iska horimaadyada ka socda etoobiya aan loo mari karin xal militari, isagoo dhinacyada uu sheegay inay muujiyaan in dalkooda ay u turaan oo xal diblomaasiyadeed arrinta loo maro, kuna tilmaamay arrinta ka taagan dalka etoobiya masiibo bini'aadannimo oo ka dhacday waqooyiga etoobiya oo weli ay tahay mudnaanta buuxda ee maraykanku uu leeyahay. wuxuu ku celiyey baaqa washington ee dhinacyada isku haya etoobiya inay galaan wadaxaajoodyo lagu soo afjarayo dagaalkani ee qarxay bishii nofembar ee sanadkii hore. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa tilmaamay suurtagalnimada in tallaabo ciqaab ah laga qaado dhinacyada diidan in xal nabadeed laga gaadho colaadda etoobiya. qorshahani ee ergeyga geeska afrika ee maraykanka uu ku booqanayo dalka turkiga waxay ka turjumaysaa saameynta dalka turkiga uu ku leeyahay istaraatiijiyadda dunida, gaar ahaan dagaalka dalka etoobiya, xilli ay in badan hadal hayeen warbaahinta dunida oo aan uga warranay xogeenna in turkiga uu qayb weyn ka ahaa in wax laga bedelo dagaalkani markii etoobiya uu siiyey 8 diyaaradood oo ah daronis, kuwaas oo horey ay wakaaladda wararka reuters u shaacisay in etoobiya ay heshiis kula gashay dalka turkiga, balse turkigu ay si qarsoodi ah ay ku geysay dalka etoobiya. dhinaca dhulka, dowladda etoobiya waxay ku dhawaaqday in ciidankeedu ay la wareegeen 7 magaalo oo cusub oo ku yaala duleedka gobolka amxaarada, islamarkaana ay leeyihiin dhufaysadii ugu dambeeyey ee maleeshiyaadka tigraaga in ay ku siisiqayaan ciidamada federaalka. warbaahinta waxay sheegtay in ciidamada etoobiya oo garab ka helaya cutubyo gaar ah ay ruqaansadeen gobolka ee tigraaga, waxaana arrintani ay timi kadib markii ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed uu ku dhawaaqay in ciidamadiisu ay la wareegeen magaalooyinka istaraatiijiga ah ee dhazi iyo kabalje ee gobolka amxaarada oo dib ugu laabtay addis ababa. abiy axmed ayaa sidoo kale arbacadii wuxuu ku dhawaaqay inuu dhammaaday wejiga koowaad ee dagaalkani, waxaana uu ballan qaaday inay sii wadi doonaan dagaalka inta laga saarayo khatarta jabhaddani guud ahaan dalka etoobiya. kooxii ugu horeeyey ee warbaahinta ajanabiga ah ayay u suurto gashay in gudaha ay u galaan gobolka kemizi ee amxaarada, iyagoo u guurgalaya xaaladaha bini'aadannimada ee halkaa ka jirta, siduu soo wariyey telefishinka ee aljasiira ee carabiga ah ee fadhigiisu yahay dooxa. kooxda wariyaasha ah
waxay soo xigtay in ka hor ay u suurto gashay in ay gudaha u galaan magaalada istaraatiijiga ah ee shahrobit ee gobolka amxaarada si ay ugu guur galaan xaaladda halkaa ka jirta kadib markii ciidamada dowladdu ay gacanta ku dhigeen. dhinaca kale afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa sheegay in gargaar bini'aadanimo oo aad u badan oo ay ku jiraan cunto carruur iyo nafaqo laga xaday lagana dhacay gobolka kobolja iyo desi. xatooyada raashinka oo si aada u dhacaysay barihii ugu dambeeyey qaramada midoobe waxay sheegtay inay isu beddeshay bililuqo baahsan oo lagu hayo bakhaarada ee gargaar bini'aadanimada ee ku yaala kobolje, waxaana la sheegay in arrintaasi ay ka dambeeyeen canaasiirta ciidamada tigraaga iyo qaar ka mid a dadka deegaanka. afhayeenka qaramada midoobe ayaa ka digay in dhibaatooyinkani ay uga sii dari karaan dhibaatooyinka nafaqadarrada ah iyo inay sii dheerayn doonto isqabqabsiga ee cuntooyinka waqooyiga etoobiya, halka oo qiyaastii 9.4 milyan oo qof ay ku nool yihiin oo ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo gobollada tigraaga, canfarta iyo amxaarada. wararka kale ee xogaha diblomaasiyaddana ciidamada dalka ruushiya ayaa laga cabsi qabaa in weerar ay ku qaadaan dalka ukrain 7 sannadood ka hor ayay ahayd markii ruushiya uu qabsaday qayb ka mid a waddanka ukrain, isagoo ay baadhitaarayaan kooxaha goosadka ah oo dhul ballaaran kula wareegay bariga ukrain. ukrain waxay had la wadaagtaa ruushiya iyo midooda yurub, hase yeeshee dalkani ka tirsanaan jiray midooda suufiyeed ayaa xidhiidh dhaqan oo shacab oo qoto dheer wuxuu la leeyahay ruushiya, iyadoo luuqadda ruushiya si weyn loogaga hadlo ukrain. ruushka ayaa muddo dheer ka hortaagnaa dadaalada ukrain ay ku doonayso in ay ku biirto midooda yurub. qodobka ugu muhiimsan ee dalkeenna waa in ukrain aysan abid ku biirin neto ama neto aanay dhulkaasi soo keenin qalabkeeda, ruushiya ayaa sheegtay markii dadka ukrain ay caydhiyeen madaxweynihii gacansaarka la lahaa ruushiya sanadka 2014. ruushiya ayaa gacanta krimiya ka qabsatay ukrain, halka kooxaha ruushku ay taageeraan ee goosadka ah ay la wareegeen dhul ballaaran oo ku yaala bariga ukrain oo loo yaqaano donbays. colaadda ukrain iyo ruushka ayaa hadda gaadhay heerkii ugu sarreeyey. ukrain waxay sheegtay in ruushku uu geeyey xuduudda madaafiicyada iyo sidoo kale nidaamyada ee difaaca jiidaha hore ee deegaanada oo falagadu ay haystaan. sirdoonka maraykanka ayaa sheegay in 175,000 oo askari oo ruushiya ah ay u suurto gashay in qayb ay ka qaataan howlgalka bilowgii Janawari, iyadoo agaasimaha CIA-da uu rumaysan yahay in madaxweynaha ruushiya Putin uu geynayo militariga ruushiya goob si degdega wax looga fulin karo. sarkaal sare oo ka tirsan golaha arrimaha caalamka ee ruushiya ayaa sheegay in horaantii bishii Diseembar 500,000 qof oo u dhashay ukrain oo ku sugan deegaanadaasi falagadu ay haysato ay haystaan baasaboorka ee ruushiya, taas oo ruushku ay doonayso in ay ku dabaqdo weerar militari oo ay ka qaado ukrain, iyadoo doonaysa inay u adeegsato inay difaacayso muwaadiniinteeda, waana sababta dhalashada ay u siisay. Putin ayaa ka digay in reer galbeedku aanay u soo gudbin khadadka casaanka ee ruushku uu dhigay ukrain. isbahaysiga militariga ee neto ayaa leh iskaashi isdifaacida. xogayaha guud ee ururka neto Jens Stoltenberg ayaa caddeeyey in taageero walba oo militari ay la xidhiidho isdifaac. Britain ayaa lagu wadaa in ukrain ay ka caawiso in 2 saldhig oo maraakiibta ah laga dhiso meel ku yaala badda madow oo ku taalla badda Oosif. hubka ka hortaga maraakiibta ee maraykanka ayaa sidoo kale waxaa loo diray ukrain, iyadoo sidoo kale 2 doomood oo ilaadada xeebaha ah oo maraykanka uu siiyey ciidamada badda. maraykanka ayaa caddeeyey inay ka go'an tahay in uu ukrain ka caawiyo difaaca ee geygeeda, balse madaxweyne Biden ayaa sheegay in haatan aysan qorshuhu ahayn tallaabo militari. xogeedna qaybta wanaga inta xogaa kale idiin soo gudbin doono. nabadgelyo.